meeshaan waxay tahay waa madal aan ugu talagalnay inay kulmiso cilmi baarayaasha kala duwan ee Soomaaliyeed si ay uga qayb qaataan sidii loo xallin lahaa dhibaatooyinka kala duwan ee waddankeena ka jira. meeshaas waxaan loogu talagalay in dhammaan dadka muhiimka ah ee bulshada ee waxbartay in ay madashaasi kulmiso. maxay tahay marka ujeedada laga leeyahay madashaan? ujeedada laga leeyahay waxay tahay marka ugu horeysa in bulshadu weligeed waddankan waxaa ka jiray ama caalamka waxaa ka jiray dhibaatooyin kala duwan. dhibaatooyinkaas kala duwanna bulsho walbaba waxay uga gudubtay hadba sida ay u adeegsato caqligeeda, aqoonteeda, maskaxdeeda iyo xirfadaha kala duwan ee bulshadeeda dhexdeeda ka jira oo loo baahan yahay in la kulmiyo. Soomaaliya haddaan tusaale soo qaadano waxaan haysanaa aqoon-yahano fara badan, laakiin waxaa laga yaabaa inaanay jirin foorumkii ama madashii kulmi lahayd si ay iyagu u kala faa'iidaystaan kadibna u soo gudbiyaan waxyaabaha bulshada faa'iidada u leh, taasoo lagu heli karo madasha sidaan oo kale ah inay isugu yimaadaan. marka hore iyagu ay doodaan, aaraa soo gudbiyaan, markay aaradaa soo gudbiyaan kadibna ay la wadaagaan meelaha muhiimka ah in bulshada lagu wacyigeliyo oo garaadka bulshada kor loo soo qaado, kadibna loo gudbiyo aaraadaas kala duwan sidii looga dhigi lahaa legislation ama sharci sidii looga dhigi lahaa loo gudbiyo. yaa arrintaas samaynaya? arrintaas waxaa laga rabaa ma looga fadhiyaa waa xildhibaanada qaranka, madaxda kala duwan ee dowladda hogaamisa ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ugu horeeyaan ayaa la rabaa inay arrintaas u gudbiyaan ama ka dhigaan horumarada kala duwan ee socda inay waafajiyaan.